buug weyna ayaa la keenay waxa la ninkii ka doodayay wuxuu ka doodayaa 3 minutes wa taariikhaha wadanka soo maray ayay ka mid tahay yani dastuur qabya oo guddi soo samaysay oo la xukumay in 3 minutes laga doodo qabyada ku jiraysa intay la yaqaanaysa iyo jeer horta khilaafaadku waxa uu ka dhacaa waxa ay ugu badan tahay dastuurkii oo aan dhamaystirnayn oo qodob baa qeexaya loo reebay bal ninkii garanaya bal basha loo reebayna waa inuu qof waliba sidoo doonayo ka dhigto sharciga hadii qalin lagu qoro iyo warqado meel la dhigo de sharci ma aha markuu dhaqan galaabo sharci noqonaya waxa aan dhaqan galiskii hor taagan siyaad baradadkii la soo shaqeeyay ma iman meesha ka shaqeeyay runta markaan isu sheegno tumisay sharciga inta horta runtii bilowda mar walba waa inta haysa mintida deebkeeda haysa nin caadi oo shakhsi oo muwaadin ayaa la oranaya wasiir baxkale sidoo wasiir ku xiraan aan loo keenin waraaqa loo keenin oo maxkamadda la geeyay oo aan la baarin ayaa la oranaya wasiir baa soo xiray gurigaaga lagu soo dhacay arrinkani wuxuu ahaa mid aad uga dhex muuqday xiriirkii adkaa ee u dhaxeeyay maamulkii dhawaan xilka lagala wareegay iyo golaha wakiilada doorashadii golaha wakiilada ee 2005 ayay xisbiyada mucaaradku ku guuleysteen kuraasta ugu badan ee golaha taasoo ay ku hantiyeen shirgudoonka golaha isla markaana caqabad ku noqotay samaynta xiriir wada shaqeyneed oo u dhaxeeya golaha iyo xukuumadda iyo sidoo kale golaha guurtida xukuumaddii wixii ay soo jeediyaanba ama roox hata ama beel hata waa iska caabin iyo kale waxa uu keenaba way celiyeen meeshiiska waxa iska horreeyay awoodood والله yihiin xukumi inta baarlamaan macaarada waxaan soo ansaxay hadayna xukuumaddu ayna fulin anigu waan reebay marka challenges ama caqabadaha ka hormid golaha wakiilada ee shaqooyinka ugu curyaamay waxa kamid ahaa fulintii oo sida loo talagalay loo shaqeeyo khilaafkii uu keenay dhisidii commission doorasho oo cusub iyo muddo kordhintii golaha guurtida ee xukuumadda ayaa noqday khilaaf joogto ah oo daba dheeraaday isla markaana aan xal laga gaadhin kaasoo cirka ku shareeray jawigii siyaasadeed ee doorasho ku qabsoomi lahayd sharci soo bixi lahaa ba aynu yaynaan si wada u arkayno waxaynu wax ugu arkaynin dan degaan dan qabiil dan kooxeed dan xusbi kun danoodoo aan ahayn tii caamka ahayd يا إسوة بركان isku dhacyadan soo noqnoqonayay waxay aad u saameeyeen isfahamkii iyo midnimadii xildhibaanada golaha wakiilada barnaamijku wax weeye nimankan parliamentarianka ah iyaga confused iyaga laftooda ay confused hadana confused ahayn dalbaabada sumay xidhano process loo yeeray niga dhacayna wallahi ku jiray waxaan qaban doonaa intaas oo ceeb aan idin ku doonaa intaas oo idin shaqo geey doona isagu wax weeyaan waxyaabo soo jeediyay isagu ma afan horta waa taas oo marka uu wada soo shaqeeyay maadaama baarlamaanku waayay xiriirkii dadweynaha soo doortay maadaama baarlamaanku lumiyay xiriirkii dadweynaha soo doortay marjac u celiye malaha waxa lagu sameeyo maxaa yeelay dawladda wuxuu kaga ciilbeen lahaa wax kasta oo ay soo taagto dadweynaha ka qayb qaadasho la'aanta bulshada Soomaaliland ee hanaanka siyaasadda dalka ayaa ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee kaliftay in siyaasiyiinta waddanku aanay uga warwarin in khalkhal siyaasadeed uu dhaliyo kacdoon dadweyne mararka qaar oo dadweynuhu isu xilqaamay inuu door ku yeesho sida qabashada mudaharaadyo waxay isu rogaan rabshado keena khalkhal iyo xasilooni darro inkastoo ay markii dambe sababtay dhimasho dhacdooyinkii bishii 9aad ee 2009 waxay si fiican door ugu lahaayeen inay soo afjarmaan ismariwaagii siyaasadeed ee waqtigaa taagnaa waxa lagu sharxi karaa sababta aanay dadweynuhu xoog ugu lug lahayn hanaanka doorashada iyo kaalintooda codbixineed in fahamkooda la xidhiidha xuquuqdooda siyaasadeed iyo tamadaniga ahba ay kooban tahay ama ay yar tahay xaqiiqdani ma ahayn waaqac ka dhex aloosnaa golaha baarlamaanka oo keliya
laakiin waxay ahayd caqabad baahsan oo laga dhex dareemi karo dhammaan haykalada dawliga. garsoorka Somaliland ayaa tusaale xusud mudan kaasoo sida ku qeexan dastuurka haysta awood buuxda oo ka madax bannaan dhammaan laamaha kale ee nidaamka dawliga. laakiinse intii lagu guda jiray muranadii siyaasadeed ee hore garsoorku waxa uu ahaa mid aan wax saameyna ku yeelan taasoo kaliftay in xallintooda loo adeegsado siyaabo kale ama sii yaalaan iyagoon la xallin. labadeenoo kale waxaan isku qabsanuma maxkamadda lala tagaa laakiin marka arrimaha sharciga ah ama siyaasadda la isku qabto sida badan lama tago maxkamadda. inta ma waxa haysta wasaaradda xukuumadda marka iyagu ma madax bannaano markaan golaha xukuumadda ka hadlay iyagiina xukuumaddeeda gargartaagay maxkamadeedii dastuurna ma fasisho cadaaladda ma sugi karayso. iyadoo ay ka turjumi karto dhibaatooyin intaa ka sii xeel dheer xayndaabka sharciyeed ee dalka ayaa ah mid sii dhiirigelinaya habdhaqana in qaybo bulshada ka mid ah ay ku waayaan doorkii ay ku lahaayeen talada dalka. dhallinyarada dalkan oo ah xoog aan la dhayalsan karin maxaynu ku tilmaami karnaa doorkooda dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale talada dalka. horta xeerka Somaliland waxa ku yaala inaan 35 qof ka jira aan soo sharxi karin atla waynu 35 jir ahaada marka arinta markii laga hadlay waxa sababay horta ugu weyn ee dhalinyarada maanta haysta waxay tahay odayaashii oo xilka dhigaynin. marka loo eego siyaasadda aad bay ugu yeeltahay dhalinyarta waxa la soo dooranayaa odaygii hebel caaqilka u ahaa ama kii hebel ahaa ayaa la soo dooranayaa marka dhalinyar ahaan loo eego dhalinyartii kulli waxay ku niyadsan tahay maaha wixii waxa fiican qofka in wanaagiisii ama wax qabadkiisii loo qadariyo taas bay dhalinyartu ugu biiri kartaa siyaasadda. sidoo kale inkastoo aanay jirin nidaam sharciyeed oo ka reebaya haweenka inay ka muuqdaan hanaanka siyaasadeed ee dalka haddana xaqiiqdu waxay tahay in la duudsiyey saamigoodii iyagoo og ama ra'yi talo wanaagsan soo jeedin lahaa processkaasi way ka maqan yihiin marka democratic ma noqon karta sababta bulshada iyo dhan kuma jiraan. bal ina la yidhi madaxweyne noqo xagee lagu rag soo dhisbaa la yidhi oo rag samee iyadii baa qaadaysa iyadii baa dhalaysa iyadii baa samaynaysa iyadii baa yani rag samee baa la yidhi xagee lagu yidhi muxuu ah madaxa absareedka cale markii dhooydo waxaa la yidhaah geeyaan baa guriga joogay aday geel kaa wadaane gooday gaagaabsa hadal haddaynu meel walba intaynu rag iyo dumar isdhex gano shaqanu doonayna madaxweynenu rabnaa dee waa salguur weeye. marka dibadda laga joogo qaybaha siyaasadda doorarka ay leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyo daneeyayaasha ayaa u muuqda mid saaxadda ka maqan ama huriya kala qaqobnaanta bulshada. saxaafadda Somaliland ayaa tusaale ahaan waxay u muuqdaan qaar mas'uuliyad iska saari waayay doorkii ay ku yeelan lahaayeen hanaanka siyaasadeed ee dalka. warbaahinta Somaliland way dadaashay waxay qabatay wax aan ummadda oo dhan qaban laakiin wax weyn baa dhiman waxaasina waa waxa khatartiisa yeelan kara. aqoon darradu waa u nacab kamarada waa u nacab xisbiga waa u nacab muraayadda waa u nacab biyaha waa u nacab nolosha aqoon darro wax walba waa u nacab warbaahintii waxa haysata aqoon darro haysata marka waxyaabo fara badan oo wacyigelin u baahan oo qoladan baahintan aanu ku dhaliilayno oo leenay shicibka iyo dadka inta wanaagsan ma garanaysa laba nin oo iscaayay TV-ga ka soo saareen. waxaa xusud mudanse intii ka dambeysay tababaray Interbiis iyo akaademigu u fudiyeen warbaahinta Somaliland iyo sidoo kale saxiixii xeerkii anshaxa doorashooyinka ay warbaahinta maxalliga ah ee dalku muujisay xilkasnimo ilaa heer la taaban karo. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay hanaankii dimuqraadiyadeed ee Somaliland ku tallaabsatay ma mid doorasho madaxweyne ku egbaa mise waa mid u baahan falanqayntii isla markaa hoos loo eego qodobadii muhiimka ahaa ee uu filimkani taabtay. wuu dhammaaday tartankii axsaabtu guul buu ku dhammaaday wax ka hadhay ma jiro inaan dalkeenna u wada shaqayno oo maanta u taagan
rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay ay tullima meerta noo tahay oo weliba kaga meel cadday miidhsa diidanayay intaan madab rag kale loo shushubay wuxuuga meeleeyo oo aan fartana muudsanayn meeshana aan joogo saddex magaca lee xaajadaa layba maraysiiyo haddii aad jariidada haatuf ay ku yaro dhibto maandeeq baad iska soo iibsanaysaa no problem dabeedna mabsuud baad noqonaysaa waad iska tegaysaa hadday maandeeq monotonous kugu noqoto geeska africa iyo haatuf iska soo qaado ku qayilo dabeedna iska soco warbaahinteenu ta duwaligee radio muqdishona hargeysana waa tii radio muqdisho suldaan diiriya xeer noo sameeyey 250 sannadood buu mootay kii baanu ku dhaqanaa kaanu ku dhaqanaa dhaqankii islaamnimadu ku salaysan yahay nooca u raaca cid maraykan oo naga ratay markaanu sii eegnana dee cid naga ratay oo noo aqoon kale noo furtayna ma jirto waxaan qabaa anigu dimuqraadiyaddu heerkay ku soconaysaa inaanay heer ay inaga hirgeli karto ahayn berigii hore la dooran waxay noqon jiray walla computerka yar haddaan eego dalkuba waa dherg laakiin wadda loo marayo ya may garan aba dhergan xagaynu u maraa maaha tii Clinton iyo meeshaa joogtay baashu marka way rag reer magaala iyo ma isalay dad kale inuu ka sheekeynay reer miirnimadoodii ka guureen dhaqankoodii ka guureen wixii ka dibadda isagii baalkii yaraaba isku waashay dibadda qaar baan ilaa maanta imanba meesha